Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum daawadayaasha ku xiran channelka Sheekh Cabdixayi Official. Muuqaalkan waa uu ka duwan yahay kuwii hore. Waxa aynu uga hadlaynaa wixii ka dhacay jimcihii ina dhaafay Masjidka Cumar bin Khadaab ee ku yaala laamiyaraha Zoobe ee degmada Hodan, halkaas oo ay tageen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska. Daawadayaal, sida aan idiin soo baahinayba jimcihii khudbadu si caadi ah ayay u qabsoontay. Sheekh Cabdixayi Sheekh Aadan waxa uu tagay masaajidka, waxa uu halkaasi ka akhriyay khudbada oo afka Carabiga ku qorneyd. Salaada ayuu dadka tujiyay, sidoo kale salaad janaaza ayaa waxaa loo tukaday muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta u geeriyooday xanuunka coronavirus ee ku kala sugan dunida caalamka. Intaas kadib sidii caadiga ahayd Sheekh Cabdixayi khudbadii tacliiqeeda ayuu akhriyay. Markii uu albaabka kaga soo baxay masaajidka waxaa u yimid sargaal ka tirsan ciidanka booliska gobolka Banaadir, gaar ahaan saldhigga booliska degmada Hodan. Si gaara waxa uu ula hadlay Sheekh Cabdixayi oo ay meel gaara wada istaageen, sida muuqaalka aad ka dheehan kartaanba. Wada hadal kooban ayaa waxaa dhex maray Sheekh Cabdixayi iyo sargaalka booliska. Sargaalka ayaa waxa uu si guud sheekha marka hore warbixin ka siiyay dadaalada dowladda ay ugu jirto sidii ay uga hortagi lahayd cudurkan coronavirus, waxyaabaha faafitaankiisana ay qayb ka tahay isu imaatinka dadka tirada badan. Sargaalka waxa uu sheekha xasuusiyay in masaajida badan oo ku yaala magaalada Muqdisho maalinka Jimcaha aan laga oogin khudbada, sidoo kale toole masaajida aan lagu tukan. Qaarkood inta ay khudbadu socotay ayay tageen booliska sida sargaalka uu sheegay oo ay joojiyeen, halka kuwa kalena ka hor ay ku wargeliyeen dadka maamula masaajidaasi. Balse Sheekh Cabdixayi ayaa waxa ay sheegeen inay ku xishmeeyeen maadaama masjidkiisa uu ka mid yahay midka ugu badan oo ay ku xiran yihiin dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho, in khudbada ay si caadi ah u ogaan, salaadooda tukadaan, kadibna amarkii guud ee ka soo baxay dowladda loogu wargeliyo. Daawadayaal, wada hadal dheer ayaa dhex maray Sheekh Cabdixayi iyo sargaalka booliska. Ugu dambeyn sheekha waxa uu aqbalay amarka uu sheegay sargaalkaas inuu ka waday dowladda Soomaaliya, gaar ahaan taliska guud ee ciidanka booliska, ee ahaa in masaajidka wixii maalinka ka dambeeya aan lagu tukan doonin, salaada khudbadana aan lagu oogi doonin inta xaaladda wadanka uu ku jiro iyo cabsida faafitaanka coronavirus uu joogsanayo. Intaas kadib sargaalkii booliska waa uu tagay, ilaaladiisana hore ayuu u kaxaystay, waxaana isu soo haray Sheekh Cabdixayi iyo weliba jameecada masjidka. Daawadayaal, waxaa xusid mudan in jameecada Masjidka Cumar bin Khadaab aanay ka tegin goobta intii ay wada hadlayeen sheekha iyo weliba sargaalka booliska, oo xitaa ay ku hareereysnaayeen, taa oo muujinayso jacaylka ay u qabaan sheekhooda. Intaas kadib Sheekh Cabdixayi ayaa waxa uu la hadlay jameecada Masjidka Cumar bin Khadaab, waxaana uu xog ka siiyey wixii dhex maray isaga iyo weliba sargaalka booliska ee dowladda fariinta ka siday. Sheekh Cabdixayi waxa uu u sheegay jameecada in wixii maalinka ka dambeeya aanay jiri doonin khudbadihii iyo weliba salaadihii lagu oogi jiray Masjidka Cumar bin Khadaab ilaa iyo xaalad waxay iska bedelayaan. Waana kan hadalkii Sheekh Cabdixayi uu u jeediyey dadkii ku sugnaa masjidka ee jameecadiisa u badnaa. maxay ahayd xaaladda intay si ka noqonayso soo imaanshooyinka tirada badan oo magaalada guud waa magaalada dhan waaye sajaa ma jamca lagu ma tukaninba inaga uma tukanay arka la fiiq may Allah nafuu Allah naga sidoo kale toole maqribnimadii Jimcaha Sheekh Cabdixayi waxa uu fariin kooban soo dhigay bartiisa Facebook. Waxay u qorneyd sidan: maanta iyo khudbadii masjidka sidii caadiga ii ahaydba, gurigayga xaafadda Madiino 11 iyo qadar 30 daqiiqo ayaan bajaaj ka soo raacay. waa barqadii markaan Saybiyaana marayo, jidka ayaaba isku xiran. waxaan u maleeyay ciriirigii wadada ee caadiga ahaa. waxoogaa markaan taagnaa, saacaduna igu sii dhacayso, ayaan ka degay meeshii wadada ka xirneed, ayaan lug uga gudbay, bajaaj kale ayaan ka sii raacay, masjidkii ayaan tagay, khudbadii ayaan akhriyay, salaadii ayaan tukanay, dadkii dibadda ku dhintay janaaze ayaan u tukanay,
tacliiqii ayaan qaadanay kadib sargaal boolis ah oo bannaanka igu sugayey ayaa ii yeeray wuxuu igu wargeliyey in masaajidda iyo hoteelada la xiray cudurka jira daraaddii ee saas ula socda haye ayaan ku idhi sidaas ayay khudbadii noogu dhacday waddanka aafada iyo cudurka allaha ha inooga haayo sidaas waxaa bartiisa facebook kusoo qoray sheekh cabdixayi sheekh aadan oo kaga hadlayay wixii ka dhacay masjidka dibaddiisa markii sargaalka booliska u yimid daawadayaasha ku xiran janalka sheekh cabdixayi waxaan u sheegaynaa in ay sidaas ula socdaan oo khudbadaha inta ay hakadka ku jiraan iyana dhankii khudbadaha ay hakad ku jiraan balse duruustii kale ee janalka la soo gelin jiray sidiis ay u socon doonaan hadday ahaan lahaayeen tafsiirka qur-aanka kariimka oo maalin walba halkan la soo geliyo iyo sidoo kale toole cashiro ku saabsan hadba wadciga xaaladda guud waddanka uu marayo sidoo kale waxaan daawadayaasha u ballan qaadaynaa in cashiradu aynu soo badin doono maadaama bil barakeysan ramadaan la galayo sidoo kale toole dadka aan mararka qaar isku dayi doono in su-aalo ay soo weydiiyaan shiikha oo ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan shiikhana uu si toosa uga jawaabi doono aad baad u mahadsantihiin daawadayaal waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad ugu taxantihiin janalkan oo ah mid دروس ديني انت بدن لغسو باهيو فكان ينبغي أن يتعدوا بذلك وأن يستسلموا لرب العالمين الذي هو القاهر فوق عباده يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بعض الكفار في هذه الأيام بدأوا يتذكرون ما في القرآن ما في الإسلام إلى أن وصل الأمر بهم في بعض الدول الأوروبية أنهم أذنوا أن يرفع الآذان فوق كنائسهم وكانوا قبل ذلك لا يسمحون الآذان أن يرفع أو أن يخرج الآذان إلى الخارج الآن يستمعون إلى الآذان ليطمنوا الناس ما يتعرضون من محن تذكروا بعض الشيء ولكن لم يزالوا في شركهم وفي كفرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أليس هذا الأمر غاشية تغشى على العالم كله من شرقه إلى غربه من جنوبه إلى شماله غاشية فالناس في حيرة من أمرهم فكيف إذا كان الأمر في القيامة أو تأتيهم الساعة بغتة هذه الأيام بعض الناس يتذكرون هل قامت القيامة ما هذا الأمر أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ما دور المسلمين في هذا الأمر أن ينشروا الإسلام يبشروا الدعوة الإسلامية في أرجاء العالم لأن العالم في هذه الأيام قد تحير ينتظرون المنقذ والفرج فالحل هو الإسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أنتم تحبون هذه الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل تأملوا هذه الآية الوضع يشير أن الرسل كانوا في موقف حرج ولقوا تكذيبا ورفضا من قبل المدعوين ووصلوا إلى مرحلة أن هؤلاء القوم
لا يؤمنون بالله ولا بالرسل وصلوا إلى مرحلة من اليأس وهم يوحى إليهم وأن نصر الله قادم، ولكن شدة الأيام والمحن التي يتعرضون لها وصلوا إلى هذه المرحلة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.